بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal kusoo dhawaada janaalkeenii rawaan janaal ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya xasan cali kheyre oo ka qayb galaya shir ay soo qaban qaabisay Chatham House. Shirkaas oo uu kaga qayb galayay muuqaal baahiyaha aragtida fog ee lagu shiro amaba zoomka loo yaqaan. xasan cali kheyre ayaa waxa uu ka hadlay qodobo fara badan, qodobadaas oo ugu muhiimsanaayeen doorashada Soomaaliya oo dhici lahayd 8 February, maadaama ilaa iyo hadda aysan muuqanin wax diila ah amaba saansaan doorasho aysan ka muuqanin meesha. xasan cali kheyre ayaa wuxuu yidhi waa in la gaaraa xal la helaa inta laga gaarayo 8 February, maxaa yeelay waxaan ka baqayaa buu yidhi 8 February haddii la gaaro oo xal la heli waayo in dalka uu lugaha la galo dagaal sokeeye amaba uu qalalaaso siyaasadeed wadanka galo. maxaa yeelay buu yidhi xasan cali kheyre 8 February haddii la gaaro madaxweynaha xilkiisa waa u dhammaaday, macnaheeda dastuuri ahaan madaxweynaha markaas ma aha madaxweynaha dalka Soomaaliya ee waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. sidoo kale hay-adaha dowliga ah sida labada aqal ee baarlamaanka waqtigooda iyaguna mar hore ayuu dhacay oo ma ahan awood dastuur. xasan cali kheyre oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga fogaa tan iyo intii burburka uu dhacay, maadaama uu dalka ka ahaa ra-iisul wasaare muddo 3 sano iyo bar ah, balse khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha sida wararka nagu soo gaareen. baarlamaanka uu kaga qaaday xasan cali kheyre kalsoonida kala laabtay. xasan cali kheyre kadib wuxuu iclaamiyey inuu yahay musharax madaxweyne, isaga oo isla markiina ku biiray midowga musharaxiinta madaxweynaha kursiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale midowga uu ka tirsan yahay xasan cali kheyre ayaa waxa ay ku goondiyeen amaba dowladda ku handadeen in haddii waqtiga dowladda uu ka dhaco ama waqtiga uu dhammaaday iyadoo xal la helin ay dowladda kaga saari doonaan madaxtooyada si awood leh. weli waxay nala socotaan janaalkeenii rawaan janaal, subscribe ha idin ahaado janaalka. dhanka kale waxaa maanta la qorsheynayay in uu baarlamaanka hor yimaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya labadiisa aqal, balse aqalka sare ayaa waxa uu yiri in warqadda madaxweynaha soo diray kaliya uu u soo diray madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka kaliya ama aqalka hoose, taas oo madaxweynaha uu ka codsanayo in muddo kororsi loo sameeyo muddo 2 sano ah xilka loogu daro. waxaa soo baxay warar sheegaya in habeenka xalay ahaa lacago lagu qaybinayay baarlamaanka iyada oo la siinayay baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka ah lacaga gaaraya 10 kun oo dollar, halka la siinayay xildhibaanada aqalka sare lacaga gaaraya 20 kun. balse madaxweynaha ayaa maanta dib u soo dhacay oo weli imaanin, waxaana miiska saaran qorshe adag oo madaxweynaha loogu darayo muddo kororsi taasoo gaarayso ilaa muddo 2 sano ah, iyadoona og tahay in arrintaas ay hirgeli doonto oo uu madaxweynaha sii joogi doono muddo 2 sano ah. haddaba maxaa dhici doona haddii waqtigaas loogu daro madaxweynaha, sideena u qaabili doonaan midowga musharaxiinta? dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi oo ay ishayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu diiday in aqalka sare aanan madaxweynaha kaga imaan wax warqad ah, wuxuuna beeniyey in madaxweynaha warqadiisu ay ku qorneed in aqalka sare uu ka doonayo in ay u saxiixaan muddo kororsi, balse waxaa suuragal ah rag badan oo madaxweynaha isu dhow yihiin oo aqalka sare ku jiro in ay yimaadaan fadhiga baarlamaanka uu madaxweynaha imanayo haddii cabdi xaashi uu iman waayo. taas oo sawir ahaan u muuqan doonta in aqalka sare iyo aqalka hoose iyagoo wada fadhiyo madaxweynaha muddo kororsigiisii meesha lagu ansixiyo. khilaafka cabdi xaashi iyo madaxweynaha u dhexeeyo ayaa ilaa hadda dhammaanin, iyada oo
cabdi xaashi iyo madaxweynaha khilaafkooda salka uu ku hayay soo xulista xildhibaanada gobolada waqooyi, iyadoo markii dambena lagu amray cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka in iyagu ay arrintaa ku heshiiyaan oo arrintaas ay ka miro dhaliyaan oo iyagu ay isku afgartaan. waa tahay daawadayaal, waxaa weli nagala socotaan janalkeeni rawaan janal. wixii intaa kusoo kordha doorashooyinka Soomaaliya dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa. waxaan codsanaynaa in channelka aad subscribe saartaan, like iyo comment iyo share kana aad naga hilmaamin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.